waa soo dhaweyntii u ballaarnayd oo ay in muddo ah sameeyaan bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer. Waa farxad ay qabaan dadkan soo dhaweynaya gudoomiyaha cusub ee dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u soo magacaabay gobolkani Togdheer. Maxamed Diiriye Xayd, dhalinyaro, haween, waxgarad, maamulka degmada Burco, taliyayaasha kala duwan ee ka howlgala gobolkani Togdheer iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasaabka ayaa iyaguna qayb ka ahaa soo dhaweynta iyadoo bulshadu kaga hortagtay deegaanka kala sharka oo 25 kiiloomitir u jirta magaalada Burco kadib markii uu salaan ka qaatay dadweynihii tirada badnaa ee soo dhaweynayay. Waxa gudoomiyaha cusub loo soo galbiyay dhanka iyo degmada Qoyta waxaana halkaasi hadallo kooban oo ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha cusub ka jeediyay qaar ka mid ah salaadiintii soo dhaweynaysay iyo sidoo kale kusimaha barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahad celinayna magacaabista gudoomiyaha cusub. waxaan leenahay madaxweyne waad noo soo xushay waad noo doortay waan ka gudoomay Maxamed Diiriye Xayd oo ah nin Burco wax badan hore uga soo qabtay xildhibaan gole deegaan buu ahaa barasaab ku xigeen buu ahaa maantana barasaab buu noqday waa nin Burco garanaya waa nin Burco wax badan ka soo qabtay waa nin reer Burco leh sida muddo iyo miisaan kale soo dhaweynaysa ka muuqato aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa taa cusub gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd Beljir waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow gobolkaagii dadkaagii awal baa u shaqayn jirtay waxaan markhaati ka ahay reer Burco reer Togdheer inay diyaar ku yihiin si wanaagsan inay kula shaqeeyaan si wacan ay ku garab istaagaan sida awal loo garab istaagi jireen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer ayaa isaguna dhankiisa ballan qaaday inuu si cadaalad ah ugu shaqayn doono bulshada gobolka Togdheer. dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Togdheer munaasabadan ballaaran ee ay sameeyeen waxaynu dhigaynaa xafladda dambe midunba reer Burco ka codsanaya sida maanta soo dhaweynteeda ugu midaysantihiin inay shaqada ay qabanaysan ugu midaysnaadaan anna waxaan idin balan qaadaya ee igu xadiga ilaahaya inaan idinku shaqeeyo cadaalad iyo sinaan iyo midnimo aan qof jeclaysahay maamulka iyo gudoomiyaha iyo guddida degmada Qoyta ee wax badan qaranka u qabata haweenkii marka hore ku hadlay waana sidaa maanta u midaysantiin ilmaha yaryar u midaysnaada aniguna midnimo Maxamed Diiriye Xayd ayaa xilal kala duwan ka qabtay magaalada Burco waxayna dadweynuhu ka rajaynayaan inuu horumarin doono gobolka Togdheer maadaama oo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ay tabaysay kaalintii dawladda dhexe ku lahayd gobolkani. ayaan la Cabdullaahi Jaamac warbaahinta caalamiga SBC magaalada Burco.